iyadoo isfahan laga gaaray arrimihii la xiriiray cidda sugaysa ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa kulan lagu taageerayo dadaalada ay dawladda Soomaaliya hormuudka ka tahay ee ka socda deegaanada maamulka Galmudug isla markaasina ay soo agaasimeen qaybaha bulshada caasimadda Dhuusamareeb ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaano heer federaal ah mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug maamulka magaalada Dhuusamareeb odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka tirsan waxgaradka iyo ururada bulshada oo kulanka ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyay hawlaha xukuumadda Soomaaliya ee ka wado deegaanada maamulka Galmudug horta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa mas'uuliyiinta dawladda federaalka ka socota oo ra'iisul wasaaruhu magac weyn yahay waxaan kaloo leeyahay walaalaha 11 beelood oo la rabo halkaan inay iskugu yimaadaan oo ay maaragtay halkaan wax ka dhistaan ay danahooda ayagu maaragtay ay qabsadaan oo iscafiyaan heshiiyaan iscafiyaan waxna wada dhistaan markaana hore loo socdo hore loo dhaqaaqo waxaan baaq ku celinaynaa waxaan leenahay walaalayaal heshiiska ku dhammaaday soo socday maantana gabagabadiisii ay la gaaray oo halkaan maanta aad idaacadaha iyo shirkii jaraa'id aad maqlayseen waxaan idin leeyahay waa hartay hal la taageero hal la isgarab taago wax allaale wixii imaan kara inay wax u dhimayaanna aan meel uga soo wada jeesano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in ciidamadayadii la iskugu daro in maantay dadkii oo dhan isku mid laga dhigo in ra'iisul wasaarihi 40 beri uu jiifo magaalada ra'iisul wasaaruhu hadduusan 40 beri magaalada jiifin waa magaaladiisii qurbaha hadda dadka ugu badan oo jooga waa annaga haddana dhaqaalaha laga helay qurba joogtu way yarta waxaan ka yaabay dadku inay dhistaan wadankooda weey war maxaa ku dhacay dadka waxa sharaf weyn noo ah inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan aadka u qiimaha badan ee maantay bulshada reer Galmudug gaar ahaan bulshada Dhuusamareeb ay ku muujinayaan sida ay ugu haylan yihiin ugu faraxsan yihiin ugu qalbi furayaan dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka sameynayso dawlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Nuur Cilmi Cabdulla ayaa sheegay inay la shaqeynayaan ciidamada sida gaarka lagu xil saaray ammaanka magaalada Dhuusamareeb laamaha amniga ee loo xil saaray amniga caasimadda jumla ahaan iyo ashkhas ahaan inta waa kula shaqeynaynaa ilaahay idinkiisa cadowga nagama faa'iidaysan doono hawsha aan wadnana ilaah baan u tala saaranaynaa annaguna horena waa iskugu filnaanay haatanna waa isku filnaanaynaa ilaahay idinkiisa senator Jawaahir Axmed Cilmi oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee dawladda Soomaaliya ayaa uga mahad celisay madaxda dawlad goboleedka Galmudug sida ay ammaanka u sugeen deegaanada Galmudug madaxa xukuumadda Galmudug iyo maamulka Galmudug labadiisa gole ee suurta galiyay caawa meesha aan joogno inaan u xafladayno oo ku soo dhaweyno oo ku taageerno inay muxuuha suurta galiyaan maanta ugu dambeysay inay amnigii ku wareejiyaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ra'iisul wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadhsiinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa tilmaamay in dadaaladii ay dawladda Soomaaliya u joogtay deegaanada maamulka Galmudug ay ku dhamaadeen guulo wax ku ool ah isla markaasina uu rajaynayo in inta hartay ay dhammaan doonto dadaalkaas dheeri maanta wuxuu ku soo biyo shubay qodobada soo socda in ciidamadii federaalka iyo ciidamadii dawlad goboleedka la isku daro booliiskii lagu daray nabad sugidii lagu daray shalayna ciidamadii xoogga dalka ee federaalka lala mataaneeyay ama lala mideeyay ciidankii xoogga dalka ee Galmudug ciidamadaas la isku daray oo la qarameeyay inta dawlad Galmudug oo taagan oo isku filan oo Galmudug arrimaheeda xilka la wareegta waxa mas'uul ka noqon doona la isku waafaqay dawladda federaalka ciidankaasi waxay noo sugi doonaan amniga magaalada madaxda meel walba oo ay u baahan tahay in ama islaax laga wado ama doorasho laga wado ama hawlo kale laga wado
daahir maxamuud cabdi daahiryare dalka TV dhuusamareeb